Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo National TV idin hayo. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Fahad Yaasiin oo abaabul ciidan ka bilaabay magaalada Beledweyne. Ciidamo fara badan oo isugu jira Haram Cad, Gorgor iyo Duufaan ayaa lagu daadiyay xaafadaha magaalada Beledweyne. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaaladaasi ayaad warkeena ku daawan doontaan. kiiska Ikraan Taaliil oo markale dib u qarxay iyo ra'iisul wasaare Rooble oo qorsheenaya inuu dacwad ku soo oogo Fahad Yaasiin iyo saaxiibadiisa. Qodobada kale ee wararka National TV aad ku daawan doontaan waxa kamid ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin oo loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya oo sanadkan ay ku jiraan saraakiil ciidan. doorasho maanta ka dhacday magaalada Beledweyne iyo warar ku saabsan ayaa daawan doontaan. madaxweyne Cali Guudlaabe oo magaalada Beledweyne kula kulmay Fahad Yaasiin maxay ka wada hadleen xog ku saabsan kulankooda ayaa daawan doontaan. wararka caalamka waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson wuxuu yiri Ruushka wuxuu qorsheenayaa dagaalkii ugu weynaa tan iyo 1945. wararkaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa. waa Axad 20 bisha Febraayo sanadka 2022. fadlan daawade hadaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka si wararkaana halkan soo dhigno aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. hadaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa. u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi. waa hagaag markale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeena. wadooyinka waaweyn ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xiran xilli doorashada kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka lagu qabanayo magaalada Beledweyne. ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle ayaa lagu arkayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana xiritaanka wadooyinka ay saameeyeen ganacsiga magaaladaasi. qaar ka mid ah ehelada dadkii shalay ku dhintay qaraxii magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay la'yihiin wadooyin ay maraan si ay meedadka u aasaan. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ka bilaabatay doorashada 6 ka mid ah kuraasta golaha shacabka waxaana kursigii ugu horeeyay ku guuleystay xildhibaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo sidoo kalena soo noqday taliyaha hay'adda NISA. Fahad Yaasiin ayaa horey loo ogaa in uu ku soo baxayo kursigan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isku dayay inuu kursigan hor istaago ayaa ku guul dareystay kadib markii ay ka hor yimaadeen inta badan xubnaha guddiga doorashada heer federaal. dhanka kale la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo horeyna u soo noqday taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu soo waramayaa in uu abaabul ciidan ka bilaabay magaalada Beledweyne oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa horey looga rajo dhigay in lagu qaban karo doorashada in ka badan 20 kursi oo halkaasi yaala. xilligaasi waxa magaalada haystay ama ku xooganaa maleeshiyad hubaysan oo la magac baxay golaha kacdoonka Hiiraan kuwaas oo madaxweyne Cali Guudlaabe u diiday in uu tago magaalada Beledweyne. laakiin waxa taasi soo afjaray madaxweyne Cali Guudlaabe oo garab istaag weyn ka helay saaxiibadiisa siyaasadda Soomaaliya waa madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyagoo awood ciidan ku geeyay magaalada Beledweyne. wixii markaasi ka dambeeyay Cali Guudlaabe waxa uu bilaabay kulamo uu ku xalinayo beeshii tabashada ka qabtay maamulkiisa isaga oo ku qanciyay in uu la fadhiisan doono qof walba oo ka soo horjeeda. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo gudaya abaalka filla Soomaaliya ayaa waxa uu Fahad Yaasiin awood u siiyay in uu wixii uu doono ka sameesto magaalada Beledweyne. Fahad ayaa jimcihii 3 diyaarado ciidan iyo hubkooda ka dejiyay garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. sidoo kale ergadii dooranaysay ayuu geeyay halkaasi. ciidamadaasi waxay isugu jireen Gorgor, Haram Cad iyo Duufaan. wararka hadda naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin uu halkaasi ka bilaabay abaabul ciidan oo xoog leh waxaana uu amray ciidamada ku sugan magaaladaasi ee isaga ka amar qaata in ay howlgalo amni xaqiijin ah ka sameeyaan xaafadaha magaalada Beledweyne. sidoo kale wararka waxay sheegayaan in Fahad uu saakay kormeer ku tagay xirada ciidanka ee AMISOM oo lagu doortay oo ay joogaan ciidamo badan oo Soomaali ah iyo kuwa AMISOM ah
wuxuuna kulan dardaaran ah la qaatay saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysay. waxaa laga soo xigtay saraakiisha qaarkood in Fahad Yaasiin uu amar ku bixiyey in la xiro ama tallaabo laga qaado qofkii ka hor yimaada maamulka Cali Guudlaawe oo uu dhismaheeda qayb ka ahaa. sidoo kale wuxuu amray in laga hortago cid kasta oo lid ku ah amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle. dhanka kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa madaxtooyada magaalada Beledweyne kula kulmay la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. kulanka ayaanan faahfaahin laga bixin waxyaabihii looga hadlay, hase yeeshee waxa uu noqday kulankii ugu horeeyay oo uu Fahad Yaasiin sawir la galo mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka 5 sano ee la soo dhaafay. waxaa kulankan goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar. Fahad Yaasiin ayaa waxa uu ku guuleystay kursiga Hoob Eber 86 oo uu ka soo qaatay magaalada Beledweyne xilli guddiga doorashada heer federaal ay horay u hakiyeen kursigan, laakiin qaarkood ayaa diiday. sidoo kale guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa iyagana sheegay inay qabanayaan kursigaasi ayna ka soo horjeesteen hadalkii guddiga doorashada heer federaal. qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan. fadlan daawade si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran, subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka. sidoo kale laagiray muuqaalka si asxaab badan ay u daawadaan. markana waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsanayd hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya NISA oo nolol iyo geeri lagu waayay. gabadhaasi oo bartamaha sanadkii hore la afduubtay waxay dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay-adda NISA qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in Al-Shabaab ay gacanta u gashay kadibna ay dileen. kooxda Al-Shabaab iyo waalidiinta Ikraan ayaa beeniyay arrintaasi, waxayna taasi dhalisay hadalhayn aad u badan. waalidiinteeda waxay sheegeen in aysan ku qanacsanayn warka dowladda ka soo baxay, isla markaana ay codsanayaan inay helaan cadaaladda. dadka kiiska gabadhan lagu tuhunsan yahay waxaa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo, horeyna u soo ahaa taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Cabdullaahi Aadan Kulane oo hadda loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Farey oo isna xildhibaan ah, iyo sarkaal kale oo hay-adda nabad sugidda ka tirsan. waxaana la sheegay in gabadhaasi ay ku maqan tahay gacanta saraakiishan. kiiska Ikraan Tahliil ayaa meel adag gaaray, waxaana isku khilaafay madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaare Rooble wuxuu markaasi u balan qaaday ehelka Ikraan in xafiiskiisa ay cadaalad ka heli doonaan, isla markaana baaritaan qoto dheer lagu sameynayo dilka gabadhaasi. hase ahaatee ehelada Ikraan ayaa sheegay in muddo kadib ay cadaalad ka waayeen ra'iisul wasaare Rooble, iyagoo ku eedeeyay in uu la heshiiyey dadkii wax ka ogaa dilkeeda. khilaafka kiiska Ikraan wuxuu bilowday markii ra'iisul wasaaraha uu shaqo joojin ku sameeyay taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin. tallaabadaasi oo ahayd mid uu madaxweyne Farmaajo diiday. kadib Fahad Yaasiin waxaa loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka amniga. sidoo kale xafiisyada ugu sareeyay dalka ayaa isku qabtay cidda baaraysa kiiska gabadhan, waxaana laba guddi kala magacaabay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble. ilaa iyo hadda war lagama hayo baaritaanka ay sameeyeen. xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kamey wuxuu 22kii bishii 11aad ee sanadkii hore 2021 sheegay in guddiga baarista kiiska ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aysan u soo bixin wax caddayn ah oo muujinaya in Ikraan ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha NISA. tallaabadaasi waxaa hore loogu macneeyey in la soo afmeeray kiiska maqanad Ikraan, waxaana hadalka Buule Kamey ujeedkiisu yahay in lagu madax baneeyo eedeysanayaasha oo doonaya in ay helaan kuraas baarlamaan, waana ay heleen dhammaantooda. haddaba qoyska Ikraan ayaa xilligaasi si adag kaga hor yimid baaristan, waxayna Cabdullaahi Buule Kamey ku eedeeyeen inuu isku dayayo xiridda kiiskan, isla markaana uu doonayo inuu bariyeelo eedeysanayaasha ay gacantooda ku maqan tahay Ikraan sida ehelkeeda sheegeen. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhankiisa ku eedeeyeen inuu ka baxay balantii uu u qaaday cadaalad u raadinta kiiska, isla markaana
tuhmanayaashii gacanta u geliyey baarista. Ikraan Tahliil Faarax waxay bishii Agoosto ee sanadkii 1996 ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd dhalinyarada dibadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay. waxayna khibradan in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dawladda iyo laamaha amniga. Gabadhan ayaa in ka badan 5 sano ka hor ku biirtay hay-adda nabad sugidda ama sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA iyadoo ahayd madaxii amniga ee internetka ee hay-addaasi. markii ugu horeysay ee ay NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017 sidoo warbaahintu u sheegay taliyii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe. kadib waxay ka shaqo bilowday xafiiskii gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho oo ay agaasimo ka ahayd alla on xariista engineer Yariso. xoogaa kadib Soomaaliya ayay ka baxday Ikraan inkastoo ay mar kale dib ugu soo laabatay. hooyadeeda waxay sheegtay in markii ay baxday aqoon kororsi u aaday dalka Ingiriiska. Ikraan Tahliil ayaa la afduubtay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn cidda afduubatay marka laga soo tago eedeymaha loo jeedinayo saraakiisha ugu sareysa hay-adda NISA. gabadhan hooyadeeda oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad waxay dhowr mar oo ay warbaahinta ka soo muuqatay dalbatay in cadaalad ay hesho iyadoo markii ugu dambeysay ay ka digtay in Fahad Yaasiin oo xiligaasi ahaa taliyaha hay-adda NISA haddana la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo uusan noqon karin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isaga oo ku eedeysan kiiska gabadheeda. waxay sidoo kale ka digtay markii ugu dambeysay oo ay warbaahinta la hadasho in Fahad Yaasiin uu tago magaalada Beledweyne haddana waa uu tagay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku guul dareystay inuu markaasi cadaalad u helo kiiska gabadhan. sidoo kale Rooble oo ku guul dareystay inuu markaasi Fahad Yaasiin ka hor istaago inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda waxa uu dib u abaabulaya kiiska Ikraan Tahliil Faarax isaga oo qorsheynaya inuu dacwado ku soo oogo Fahad Yaasiin iyo saraakiishii kale ee markaasi lagu eedeeyay dilka gabadhaasi. markasta nagala soco National TV waxaad heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. ugu dambeyn haddaan eegno wararka caalamka, Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay hayaan caddayn muujinaya in Ruushka uu qorsheynayo dagaalkii ugu weynaa ee Yurub ka dhacay 1945. Johnson oo waraysi bixiyay ayaa sheegay in astaamaha oo dhan ay muujinayaan in qorshahaasi uu hadda si ahaan dhaqan galay. hogaamiyahan ayaa inta raaciyay in xogta sirdoonka ay muujinayso in Ruushka uu bilaabi rabo duulaan uu dhinac kasta uga go'doomin doono caasimadda Kiev. dadku waa inay fahmaan khasaaraha bani'aadanimo ee ka dhalan karta duulaanka noocaas ah ayuu yiri Johnson. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waraysiga bixiyay xilli uu ku sugnaa magaalada Munich halkaasi oo ay hogaamiyaasha caalamka ku leeyihiin kulan sanadle ah oo looga hadlayo ammaanka. qiyaastii ugu dambeysay ee uu shaaciyay Mareykanka ayaa tilmaamaysa in ciidan gaaraya 190,000 oo askari uu Ruushka geeyay xuduudda ula wadaago Ukraine iyo waliba gudaha Belarus. hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa maalmihii la soo dhaafay ka digayay in Ruushka uu duulaankiisa bilaabi karo xilli kasta, balse xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay weerar ku tahay dalkaasi Ukraine. waa tahay halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmeyno wararkeena soo socda nabadgelyo. waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe saarto kanaalkeena kadibna aad furto gambaleelka si wararkan halkan soo dhigno aad u hesho. nabadgelyo.